وسيدي فبراير 2017 madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka ku dhawaaqida natiijada doorashadaasi waxaa xigay dibadbaxyo iyo dabaaldegyo xooggan oo ay shacabku isugu soo baxeen fagaarayaasha galbeed ilaa bari waqooyi ilaa koonfur guusha farmaajo ayaa damaashaad iyo farxad gelisay qulubta shacab weynaha Soomaaliyeed oo u oomanaa dawladnimo laakiin ma ahayn arin ugub ah dabaaldegyadani oo mar walba oo madaxweyne cusub la doorto waxa caado ka ahayd Soomaalidu inay ku soo dhaweeyaan madaxweynahaasi caleemo qoyan muddo yar marka laga joogo xilkaasina ay habar iyo inkaar ku boobaan kuna ducaystaan intii uu dhamaan lahaa muddo xileedkiisu laakiin farmaajo ayaa isbedel weyn ku sameeyay qaacidadaasi awoodna u yeeshay inuu xilka baneeyo iyada oo ay dad badani wali u hanqaltaagayaan inuu mar kale soo noqdo haddaba maxay tahay sirta ka dambaysa shacbiyadda xooggan ee ay madaxweyne farmaajo muxaafad iyo mucaaradba u qireen heshiiskii Kampala ee 9 bishii 6 sanadkii 2011 ku dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi Shariif Xasan Sheekh madaxweynihii dalka Uganda Museveni iyo Augustina Mahigo ayaa galaaftay xilkii ra'iisul wasaarnimo ee farmaajo goobta uu heshiisku ka dhacay oo ahayd dhul shisheeye ra'iisul wasaaraha oo aan joogin wax ka badan sanad dadweynuhuna ay u riyaaqeen shaqadiisii iyo sababta lagu heshiiyey in xilka laga qaado oo aysan dadweynuhu ogeyn ayaa ka dhigtay shacab weynihii Soomaaliyeed gaar ahaan shacabkii ku noolaa Muqdisho kuwa ka biyadiiday heshiiskan dibadbaxyo xooggan oo lagu taageersan yahay farmaajo ayaa qabsaday wadooyinka waaweyn ee Muqdisho waxaana boqolaal dadweyne ah ay saldhig ka dhigteen afaafka hore ee xaruntii uu ka deganaa magaalada Muqdisho si ay uga biyadiidaan inuu wareejiyo xilka dareem mushaarka ciidanka la siinayo nabadgelyo dhaqaaq ma doonay farmaajo aan doonayna haduu dhacan wax jiro oo Soomaaliya ma jirto madaxweyne ma rabna oo dawlad ma rabna waxa rabna ma leh nin walba ha noqoto isku mataliso سكالي tobankii bishii 6 sanadkii 2011 ayuu ra'iisul wasaare farmaajo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi wuxuuna sheegay inuu is casilay isagoo fulinaya heshiiskii Kampala isla markaana eegaya marxaladda adag ee uu dalku ku jiro farmaajo wuu tagay isagoon joogin sanad laakiin is casilaadiisani kama dhigin mid magaciisu uu si sahlan uga baxo saaxadda siyaasadeed ee dalka farmaajo ayaa dalka dib ugu soo noqday si uu qayb uga noqdo tartankii doorasho ee 2012 soo dhaweyn aan loo kala harin oo ka dhigtay ra'iisul wasaarahan aan fursadda u helin waqti badan oo uu ku hirgeliyo qorshihiisii siyaasadeed mid noqda musharaxiintii ugu cadcadayd xilligaasi olole dheer kadib farmaajo ayaa ku guuldaraystay inuu gaaro xilka ugu sareeya Soomaaliya waxaana madaxweyne ka noqday dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 5 sano kadib madaxweyne farmaajo ayaa dib u soo rogaal celiyay kana qayb qaatay doorashadii dalka ee xilligaasi markan farmaajo ayaa ku guuleystay gelidda qasriga looga taliyo dalka waxaana markii lagu dhawaaqay natiijada doorashadaasi dabaaldegyo iyo damaashaad isqabsaday dhammaan geyiga Soomaaliyeed Muqdisho Galkacyo Garowe Kismaayo Beledweyne iyo dhammaan meel walba oo ay Soomaali joogto daliya dibadba waxay si wada jir ah u soo dhaweeyeen madaxweyne farmaajo isagoona noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya ee doorashadiisii sidaasi oo dhan lagu dabaaldego dabaaldegii wuu dhammaaday waxaana u bilowday madaxweyne farmaajo imtixaan adag oo uu cinwaankiisu ahaa ma sii haysan doona taageerada intan la eg mise wuu lumin doonaa talabadii ugu horeysay ee uu madaxweyne farmaajo qaaday ayaa ahayd soo xulashada ra'iisul wasaare hogaamiye xukuumadda marka la joogo Soomaaliya madaxweynuhu ma lahan awood ballaaran marka laga hadlayo waxqabadka
qofka qiimo u yeeli kara dawladda markaasi jirta samayn karana waxqabad waa ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa haddii uu bilowga horeba madaxweynuhu ku guuldaraysto soo xulashada ra'iisul wasaare karti leh waxay ka dhigan tahay inuu madaxweynaha si guuldaraystay waana tan uu ka baaraandegay madaxweyne farmaajo ayaa xilka ra'iisul wasaarnimo u magacaabay ra'iisul wasaare xasan cali khayre hogaamiye dhalinyaro ah ku cusub saaxadda siyaasadeed ee dalka horay aan loo maqal magaciisa ayuu ahaa dadka falanqeeya siyaasadduna aysan marna ku fekerin in lagu aamini doono jagada saddexaad ee ugu saraysa dalka ayuu ahaa laakiin ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa muddo yar gudaheed awood u yeeshay inuu ku xardho magaciisa baal dahab ah awoodna u yeesho samaynta isbeddello aad u waaweyn dhan amni dhan dhaqaale iyo xitaa xafiisyadii dawladda oo halka ay markii hore ahaan jireen kuwo dayacan noqday kuwo ay wasiiradii iyo hogaamiyayaashii dawladdu u kala tartamaan dayactirkooda iyo qurxintooda maadaama ay wajhad iyo muraayad u yihiin dalka sidoo kale xukuumadda khayre ayaa door weyn ka ciyaartay dhisidii iyo dib u habayntii ciidankii dalka la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo Soomaaliya ay ku tilmaaman tahay dalka ugu musuqa badan adduunka iyo sidoo kale dhisidda nidaam maaliyadeed oo awood u yeeshay inuu soo celiyo kalsoonidii caalamku ku qabay maaliyadda Soomaaliya sababna u noqotay inuu bilowdo nidaamkii deyn cafinta Soomaaliya marka laga yimaado in isbeddeladani ay samaysay xukuumaddii ra'iisul wasaare khayre haddana madaxweyne farmaajo ayaa fursad u siiyey ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay wataan shaqadoodii iyaga oo sanooyinkii ugu horeeyey wada shaqayntooda ka dheeraaday khilaafaadkii caadada u ahaa madaxdii soo martay dalka mar walbana curyaamin jirtay nidaamkii dawladnimada dabcan way jiraan khaladaad dhowr ah oo ka dhacay xukuumadda haddana waxaan indhaha laga laaban karin isla jaanqaadiddii iyo dib u dhiskii nidaamkii iyo haykalkii dawladnimo ee ay muddadaasi samaysay dawladdu ka hor intaysan iskhilaafin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu halkaasina uusan ku soo idlaan wada shaqayntii khayre iyo farmaajo haddii aanu ka nimaanno xogtan kooban ee ku aadan dawladdii xilkeedu dhammaaday ee madaxweyne farmaajo garwadeenka ka ahaa aynu u soo noqonno su'aasha rasmiga ah ee uu ku qotomo cinwaankeenna maanta ee ah maxaa sababay in madaxweyne farmaajo isagoo Soomaaliya xumaanba dalka soo xukumay aysan haddana weli isbeddelin shacbiyadiisu barqadii ama 4 saac ma shay maaday xilligan hadda jeeda waa xilli maqrino marka intaas in waxa u dul qaadanay waxa sugayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo qodobka ugu horeeya ee aynu isdhihi karno madaxweyne farmaajo uu kaga duwanaa hogaamiyayaashii ka horeeyay muhiimna ay tahay inay qaataan madaxda ka dambaysa ayaa ahayd wadaniyadda madaxweyne farmaajo ayaa cadaadisyo badan oo uu wajahay ka hormariyay danta dalka sida arrintii badda ee Kenya geed dheer iyo geed gaabanba u kortay inay ku xalliso qaab isfahan ah oo uu farmaajo ka biyadiiday kuna adkaystay in saaxad loo wada jeedo lagu kala baxo sidaasi oo kale Soomaaliya ayaa ku dhiiratay tan iyo burburkii inay dalka ka cayriso oo ay ka saarto diblomaasiyiin heer sare ah sida wakiilkii gaarka ahaa ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya oo ay amar ku siisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inuu si degdeg ah waddanka uga baxo sababta ayaa lagu sheegay inuu sameeyay shaqooyin baalmarsan sababta uu u joogo dalka faragelin qaawanna uu ku sameeyay madaxbannaanida Soomaaliya dhacdadan ayaa ku ahayd ugub saaxadda siyaasadeed ee dalka oo aysan horay madaxda ugu dhiiran jirin qaadida tallaabadan oo kale taasi oo kor u qaaday ixtiraamkii loo hayay dawladda Soomaaliya inaad si qayaxan wax u diidi kartid awoodna aad u yeelan kartid inaad dalkaaga ka saartid diblomaasiga ka hor yimaada madaxbannaanidaada heerku raba ha jooge waa tallaabooyin kordhisa ixtiraamka loo hayo dalkaasi qodobka labaad ayaa ah musuqmaasuqa farmaajo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya ee iska daa taageerayaashiisa ay xitaa u qireen madaxdii iyo siyaasiyiintii kale ee ulalanku kala dhaxeeyay inuu ka dhowran yahay musuqa iyagoona ku tilmaamay inuu yahay madaxweynaha keliya ee aan xilka xoolo iyo hanti ka tabcan qodobka saddexaad ayaa ah dib u dhiska ciidamada madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii hore ee xasan cali khayre ayaa dhexda u xirtay sidii ay ugu samayn lahaayeen dalkan ciidan qalab ahaan iyo tababar ahaan dhisan iyagoo ka duulayay qaacidada odhanaysa haddii aadan haysan ciidan lama gorgortami kartid dalalka asaaga ah ayay sameeyeen nidaam military iyagoo joogteeyay bixinta mushaarkii ciidanka oo horay ugu dulmanaa dhanka mushaaraadka ayna dhici jirtay inaysan bilooyin helin wax mushaar ah iyagoo har iyo habeen qoraxda u taagnaa difaaca dalka qodobka afraad ayaa ah hadal yaraan madaxweyne farmaajo
ayaa ah madaxweynihii ugu hadalka yara madaxdii soo martay dalka waxaana dhif iyo naadir ahayd in la arko madaxweynaha oo khudbad jeedinaya marka uu damco inuu khudbad jeediyana waxay ahaan jirtay khudbaddiisu mid muxaafid iyo mucaaradba la dhowro oo laga dhirsugo waxa ay noqon doonto khudbadihiisii oo aan ka badnaan jirin 10 daqiiqo ayaa marka uu dhammeeyo ahaan jiray maalintaasi oo dhan arrinta lagu hadalhaynta badan yahay taasoo ka dhigtay madaxweyne farmaajo hogaamiye hadalkiisa qiimo loo yeelo dabcanna saykolojiyadda bini'aadamka ayaa ah mid ku dhisan qiimaynta waxa naadirka ah farmaajona hadalyaridiisu waxay fursad u siisay inay qiimo u yeesho khudbadihiisa farakutiriska ah ee uu jeediyey intii uu madaxweynaha ahaa dabcan way jiraan khaladaad badan oo ka dhacay dowladdii madaxweyne farmaajo oo uu ka mid ahaa dhibiddii qalbi dhagax oo ka caraysiisay qof walba oo soomaalinimo ku abtirsada xurguftii aan dhammaadka lahayn ee kala dhexaysay madaxdii hore ee dalka oo gaartay heer maalin cadsiqaya xanduulaan lagu qaado xabaddana lagu rido iyo sidoo kale ballanka bixi ahaa inuu ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabo uusan beddeli doonin inta uu joogo xilka iyo arrintii ugu dambaysay ee ahayd doorashada oo ka dib dhacday wakhtigeedii sannad iyo dhowr bilood haddana khaladaadkani ma dabooli karaan xaqiiqda ah in madaxweyne farmaajo uu ku yimid rabitaan shacab samaan iyo xumaan wixii uu geystayna intii uu xilka hayay aysan ka dhigin mid lumiya taageeradiisii xoogganayd haddii aynu u nimaanno qodobka ugu dambeeya ee ah arrinta CBB-da intii uu joogay madaxweyne farmaajo ereyga ugu badan ee baraha bulshada la isla dhex mari jiray laguna shaabadayn jiray qof walba oo ka hadla samaanta farmaajo ayaa ahayd inuu yahay CBB oo loo soo gaabiyey oraahda ah cayayaanka baraha bulshada waxayna dadka dhaliila farmaajo ku eedeeyaan inuu ku bixiyey hantidii dowladda howlgelinta dhalinyaro lagu weeraro qofkii ka soo horjeestay xukunkiisa haddaba inagoon ka soo horjeesanayn ama aan taageerayn aynu hal su'aal isweydiinno lacag ma lagu kasban karaa qulubta 100,000 oo qof haddii aynu dhammaan dadka taageersan farmaajo ku eedeyno inay yihiin CBB ma awoodi waayeen madaxdii ka horeysay iyo kuwii hadda la tartamayey inay iyaguna ku bixiyaan hanti iibsashada aragtida dadweynaha iyo taageeradoodaba farmaajo kama jeebrooneen kamana hanti badnayn dabcan way jiraan dad ku shaqaysanaya arrintan oo loo adeegsanayo baraha bulshada kuna qaadanayay lacag laakiin in wadaadka jooga masaajidka beledweyne iyo boosaaso hooyada joogta suuqa bakaaraha iyo balcad aabbaha jooga qardho iyo kan jooga kismaayo ay si wada jir ah kugu duceeyaan allana ka baryaan guushaada maahan wax lagu iibsan karo hantida adduunka taallo oo dhan Silver,
وأوغا الصعدة لا يكون دلكتو وحدتكم طرادا بلي وعي ونهتدو وكيو هدم جيدها وصمت عليارو وضعي جيت وضعي جيت لنبضي وضعي